بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا لها قالي وجنة كحرمي الباء جوكتين وإذن سلامي أولاشين سعدي عبد الله جنة كاداونة سعدوش كوكن channel وهرين تاكو حسب تسودو سبسكرايب تاو كم بليكركمو لايك شير كومنت كيلوبين إن شاء الله صحابي ما تحربان روتي روح بدنينا كصوتورو وعسرية أو قلي waxaan haystaa laba xabo karooto barbarooni hal xabo basal yar iyo waxaan kala haystaa basal baar waxaan ka isticmaalaynaa qaybta yar oo cagaaran waa jarjaranaynaa insha Allah nala socda asxaabi basashu waa jarjaranay hadda waxaan rabaa inaan jarjaro barbarooniga si yar asagana yar yar usoo jarjaraynaa karootadana soo hooli doonaa insha Allah asxaabi karootada waa kana soo hoolay waxaan malaysaa laba kalar inay kala yihiin maasha Allah waxaan kula laba kalar oo qurux badan inay noqotay marka kulli waxaan ku shubanaynaa hal weel weelkii hadda waxaa noogu jira hilibkii iyo basal baar iyo barbarooni noogu jiray hilibka markii hore aan wax ku soo shiiday toon iyo basbaas hadda waxaan ku darsanaynaa karootadii waxaan ku daraynaa caraf iyo waxyaabaha kale aan ugu talagalnay filfil aan ku daraynaa waxaan kala isticmaalayaa xawaash waxaan kala u baahanahay macey ama maraq digaag hilibka marka hore waxaan ku soo kariyay cusbaan ku soo kariyay toon iyo basbaasna ku soo shiiday marka dhanaan badan ma rabo intaas ayuu filan kadib insha Allah asxaabay si fiican u soo qaseynaa soo dhex gelinaynaa asxaabay way ii qasnaa rootiga in badan waa soo geliyay rooti qaabka loo qasaayo marka saas darteed waan qastay wuu ii qamiiray maasha Allah si fiican weliba u soo qamiiray marka hore cajiinka si fiican iskaga xash marka aad iskaga xashto saddex gelisid qurux ku noqonaa iyo rooti waxa ka helaysaa qurux badan adkeyn insha Allah taxaw waa soo kuuskuusanay hadda waa fidsanaynaa midkan qudaarta lagu jarjarayo aan ku fidsanaynaa fidis weyn ma rabno dhexdhexaad u fidinaynaa
kullina ma wada jira asxaabi si fiican u fiiriya labadaas gees bas ka jareynaa laba qaab waa loo samaystaa qaabkan waa u samaysan kartaa qaabka kale xigana waa loo samayn karaa sida markaas adiga kuu fudud aa u samaysanaysaa markaas saas u jarjartid xirkaha waa diyaarsan kartaa يعني hadhow rooti waa la korkor saaraa maho kadib asxaabi waxaa soo qaadanaynaa hilibkii dhexda ugu shubaynaa marka gobolkaas oo sidii sambuuska camal u jaran aan soo qaadaynaa waa ku kor dabooleynaa kana soo qaaday oo ku kor daboolay hilibkii hadda aa kusoo shubtay kadib waa isku dhadhajinaysaa xoogaa yar kaamirada hoos iigu jirto marka ujeedin maho waa soo qabanay ka intaa saaray kan waa soo qabanaysaa waa isdib dhaafinaysaa markaa ku shubtid oo kaasi ku daboolatidna waa samayn kartaa intaadan ku shubin ka horna waa diyaarsan kartaa wax dhiba ma lahan cajiinka markaa meeshaas keentid gacantaada xoogaa kula riix waa kaa maasha allah wuu fudud yahay aad weliba u fudud yahay mar walba aad keentid adiga gacanta kula riix cajiinka saas isku dhagaayo meeshii xoogaa kaa weynaatana midida iskaga jaraysaa mididan soo qaadanaa geesaha ka jarjaraa waayo hadhow cajiimo badanay kaa yeelanaysaa mana la rabo saas ujeedin waa qurux maasha allah midka labaad haddana idiin tusinaa asagana isla fidiskii hadaadii oo kala fidinaynaa sida hadaayii oo kala u jareynaa intaadan jajarin ka hor hilibkaa ku shubanay qaabkii markaas adiga isdhaadid wuu kuu fudud yahay aa u samaysan kartaa waa ku daboolaysaa hilibka ka muuqmuuqda iyo waxaas dhan gudaha geli kadib fartaada la saas ku yeeray hadda waxaa kala wareejinaa qoriga markuu saahiga kuu fudud yahay jarjaritaanka asagana si kii hadaada ugu horeeyo kala u sameynaynaa
asxaabi dhammaan waa soo dhameeyey waa kana 2 saxan oo ii noqday saxankana ugu horeeyay insha Allah foornadan way ii daaran tahay hadda waxaan diyaarsaday ukun kora ka marinaynaa foornada 180 aan geeyay 20 daqiiqo ku soo jireysaa asxaabay waa kana foornadu way ka soo baxday 20 daqiiqo kadib ma sha Allah quruxa ku dhahay laga ma sheekeyn karo kori hoos gaduud wayna kulushahay ما شاء الله wuu jilcan yahay marka insha Allah xogaa yar daboolaya kadib waa soo diyaarin doonaa insha Allah ما شاء الله asxaabi saxanka ka soo saar sidaan ku soo baxay qurux ما شاء الله waa insha Allah ka faa'iideysta asxaabteyda wax walba qurxoon oo fiican waxaan jeclahay in aniga idinkana idin la wadaago ka insha Allah inaad ka hesheen rajeynaya like share comment waxay fikradaha qabtid comment inoogu soo qor meel walba aad joogtid waxaan idin leeyahay nabad iyo caafimaad qab ku noolaada fi amaan illah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh